محمد السلام عليكم صاحب الصور في عنده الحمد لله ما شاء الله مر وسرعنا محمد إسماعيل سليبان وويل دليرا oo naafa ka labada gacmood iyo labada lugood xanuun haleelay awgi isagoo yar xanuunkan wuxuu soo gaaray anigoo hal sano ah adigu gidaarka ku socod baranaya marka xanuunkan marka maxay ahayd aniga sidii la sheegay marka garaad ma lahayn laakiin markii aan weydiiyay waalidkii waxay ii sheegeen in afarta waxyadoon maxay ahayd hal mar madoobaadeen kadibna ay go'een kuna go'een dhakhtarka berbera xubnuhu waxa weeyaan labada gacmood iyo labada lugood caqabadaha nolosha ee ku gadaaman kama aysan dhigin mid ka hor istaaga halka uu doonayay hamiga mustaqbal ee uu leeyahay haddii aad tahay naafo maxay ahayd caqabaduhu way iska badan yihiin marka adduunyadan dhammaanteed baa caqabaduhu kama dhamaadaan markii imka intaan Hargeysa imi maxay ahayd caqabado maxay ahayd aan isdhaahdo caqabad weyn baa ka haysata ma jirto maxay ahayd bulshadaas baan maxay ahayd baahiyaha gaarka qaba in baan kala simanahay maxay ahayd waxa ay iyagu qabaan in baan anagu kala simanahay maxamed ayaa waxa uu waxbarashadiisii dugsiga hoose dhexe iyo sareba ku soo qaatay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer sida uu noo sheegay dugsigayga hoose waxaan ku bilaabay waraab salaan inkastoo ka horeeyeen dugsiyo kale 2012 ayaan bilaabay waraab salaan dugsi heerkii dugsiga sare waxaan ku dhameystay magaalada Burco dugsiga Sheekh Bashiir Secondary School haddana oo aan imka jooga Hargeysa aan iska diiwaan galiyay jaamacadda Gulis aan isleeyahay bilow dadka naafada waa dad u nugul wax kasta jir ahaan iyo qalbi ahaanba waxa yiri maxamed naafanimadu ma aha maxay ahayd jirka waa maskaxda iyo qalbiga labadaas hadii ku fiiyo yihiin wax kasta si kasta ahaatidii wad gaaraysaa meel horta dadka naafada waa dad u nugul wax kasta jir ahaan iyo qalbi ahaanba in iyaga la dhowro maskaxda ahaantooda iyo qalbiyadoodaba la dhowro intaasaan faraya bulshada naafadaana waxaan farayaa inay markasta iyago aanay isdhigan aanay oran naafatihiin ay soo gaaraan hiigsigii doonayaan iyo himiladoodaba ay ka rumeeyaan qofka naafada ah isagoon baa maxay ahayd arki kara maxay ahayd wax ku caqabada marka hor istaagan laakiin inaan u arag caqabada tii noloshiisa maxay ahayd saameyn gaarsiin lahayd wax kasta waad qaban kartaa caqabadaha noloshuna kaama hor istaagi karaan halka aad doonayso maxamed wardi Hargeysa